muwaadin ku soo dhawow barnaamijkeena wacyigelinta dastuurka oo idin diyaariyeen hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka. muwaadin wadamada dimuqraadiga ah ayaa waxaa lagu gartaa in awoodaha loo kala qeybiyo saddexda laamood ee dawladda ee kala ah xeer dejinta, fulinta iyo garsoorka. muwaadin muuqaalkan waxaan ku soo bandhigaynaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u abaaran cutubka 6 ee dastuurka. muwaadin waa maxay baarlamaan? baarlamaanku waa hay'adda ugu sarreysa dalka ee u xilsaaran xeer dejinta kana kooban golaha shacabka iyo golaha aqalka sare, waxayna u xilsaaran yihiin matalaadda shacabka, xeer dejinta iyo korjoogteynta iyo la xisaabtanka xukuumadda iyo hay'adaha dawladda. muwaadin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka kooban golaha shacabka oo tiradiisu ay tahay 275 xildhibaan, waxa uu wakiil ka yahay dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. aqalka sare oo xubnihiisu yahay 54 senatar waxaa xil gaar ah ka saaran yahay matalaadda danaha dawlad goboleedka ay matalaan iyo inay ilaaliyaan nidaamka federaalka. muwaadin baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu leeyahay 3 awoodood oo waaweyn oo kala ah: awoodda koowaad matalaadda shacabka, awoodda labaad inuu bilaabo mashruuc xeer ama ka baaran dego hindisa xeer ama diido hindisa xeer. hindisa xeereedka waxaa soo bandhiga xukuumadda federaalka, sidoo kale xildhibaanada ayaa awood u leh in ay bilaabaan mashruuc xeer. waxaa ka baaran dega guddiga u xilsaaran inta aan loo gudbinin golaha si uu ansixiyo ama uu diido. baarlamaanka inta uu ansixin hindisa xeereedka waa in uu hubiyaa in uu waafaqsan yahay dastuurka. awoodda saddexaad korjoogteynta iyo la xisaabtanka xukuumadda iyo hay'adaha dawladda. baarlamaanka iyo guddiyadiisu ayaa awood u leh inay u yeeraan golaha wasiirada ama wasiir si uga jawaabo su'aalaha ama loola xisaabtamo. xeer hoosaadka. muwaadin baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu leeyahay xeer hoosaad wadajir ah golaha shacabka iyo golaha aqalka sare. wuxuu mid walba goonidiisa u sameeyaa xeer hoosaadkiisa kaas uu ku nidaaminayo habsami u socodka howlihiisa. guddiyada baarlamaanka. muwaadin golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxay yeelanayaan guddiyo u xilsaaran howlaha golo kasta si gooni ah uu u gudanayo. guddiga adeega baarlamaanka. muwaadin qodobka 111 ee dastuurka ku-meelgaarka waxaa lagu xeeriyey in la dhisaayo guddiga adeega baarlamaanka oo aan la samayn tan iyo baarlamaankii 9aad. guddiga madaxa bannaan ee dastuurka wuxuu soo jeedinta wax ka beddelka cutubka 6aad ku nidaamiyey guddiga adeega baarlamaanka oo ka kooban 5 xubnood oo kala ah: gudoomiyaha golaha shacabka oo noqonaya gudoomiyaha guddiga, gudoomiyaha golaha aqalka sare oo noqonaya gudoomiye ku-xigeen, 2 xubnood oo ka imaanaya golaha shacabka oo midkood ay tahay haween, 1 xubin oo ka imaanaya golaha aqalka sare. kala fadhiga baarlamaanka. muwaadin baarlamaanka federaalku sanadkiiba wuxuu yeelanayaa 2 kala fadhi oo caadi ah, balse waxa uu yeelan karaa fadhiyo aan caadi ahayn haddii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka isugu yeero, guddoonka labada aqal midkood isugu yeero, ay codsi qoraal ah ku weydiistaan xubno ka tirsan golaha shacabka ama golaha aqalka sare. kulamada wadajirka ah labada gole. muwaadin golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxay yeelanayaan kulamo wadajir ah oo looga arinsanayo miisaaniyad sanadeedka, wax ka beddel kasta ee dastuurka federaalka, ansixinta xaaladaha degdega iyo xaaladaha dagaalka. muwaadin wax ka beddelka cutubka 6aad ee dastuurka waxaa lagu xeerinayaa 1 awoodaha u gaarka ah ee golaha shacabka, 2 awoodaha u gaarka ah golaha aqalka sare, 3 awoodaha wadaagga golayaasha baarlamaanka federaalka.